wiigii ugu dambeeyay waxaanu sameynay dabagalkii anagoo ku jirna waxaa noo soo cadaatay in muwaadin kamida muwaadinada ka shaqeysta wadanka isagu si xilkas ah oo garasho ma taqaanaayay ay ku jirto danmo iyo danqasho leh oo soo sheegay in gaari sharaab ah si khaldan looga soo iibiyay faantadani hortaala wuxuu ka codsaday Addis Ababa ninkii Addis Ababa ka soo iibiyay wuxuu ka soo iibiyay to ay maxaan ku dhahay waqtigeedu uu aad u dhow yahay kolka waxa dhacday maadaama xafiiska mar hore aan la xiriirnay toos buu noola soo xiriiray wuxuu yiri gaari noocaasa oo sharaab taariikhdiisu ay dhowdahay ayaa laga soo iibiyay waxaan u baahanahay inaad sharciga waafajisaan anna ma taqaanaa xaqayga sidii aan ku heli lahaa folowgeeda aad gashaan oo ii soo celisaan kolka ka xafiis ahaan waan u yeedhnay wiilkii uu noo yimid sharaabkii ma taqaanaayay structure-kii baanu marinay waanu xakameynay gaari baanu ku raraynaa waan soo gubnay maxaan ku dhahay arintaas horta hadda qabano soo keenyanay kolka sharaabka noocaasa waqtigiisu uu gaaban yahay waxa lagu tala galay ugu badnaan 3 bilood inuu sharaabka mataqaanay deedkiisu ay ka hadho kolka muwaadiniinta kale ee ganacsanaya magaalada ka ganacsanaya sida muwaadinka intay noqdaan markay arkaan sharaab waqtigoodu uu hooseeyo inay sida ugu dhaqsaha badan la soo socodsiiyaan annaguna iyaga aanu caawino si uu wixii bulshada maxay ahayd u dhaxgelin daily routine waxa jira maxaan ku dhahay inspection wax la dhaho shaqaalaha nagu maalin kasta si joogto ah ay u baxaan waxay soo maraan goobaha maxay ahayd sharaabka lagu qaybiyo hoteelada maadaama kolka uu og yahay in laga warhayo oo wacyigelin ay jirto wuxuu dareemayaa hadii uu tusaale ahaan cid kale uu ka sii iibiyo oo shaqaalihii oo wareegaya ay la kulmaan wuxuu dareemay maxaan ku dhahay war xageed ka soo iibsatay waa la dhihi ruuxi kadib wuxuu ku soo qotomay ruuxi ka soo iibsaday kolka maadaama wacyigelin jirto wacyigelintaas kow ka ah in maxay ahayd in la ogaado waxa marka ugu horeysa ugu muhiimsan in lala haysto oo shakhsi walba waxa uu isticmaalayo uu iska jeegarayo sababta muddadan badan dadka oo dhan isku mid ma aha dad waxa jira aan shakhs tooda un eegaya oo bulshada eegin kolka waxaan soo jeedin lahaa nin walba inuu quality-ga isagu naftiisa uu ka bilaabo oo shakhsi walba inuu xafiiska ama maxay ahayd badqabka caafimaadka iyo wuxuu isticmaalayo lambarko inuu horta isagu iska jeegarayo oo wax walba iska isticmaalo wax allaale wixii oo arka ama date-kooda oo hooseeya ama quality-gooda oo fiicnaan inuu xafiiska la soo xiriiro waxa jirta wacyigelin ballaaran oo xafiiska uu sameeyo degmooyinka tusaale ahaan gobolada maamul magaalooyinka waa mar baan 3 bilood soo weeyana wax kalena kala ma hadalno waxaan kala hadalnaa cuntooyinka isticmaalayaan dawooyinka isticmaalayaan iyo adeega caafimaadka dhammaan wax walba ma taqaanaayay inay si digtooni leh ay uga warhayaan